waxaa dhacday in YouTube-kiga ciladoobay YouTube-kii laga saaray xayiraad qaybta xayeysiinta sugayay bisha 11aad sida wada ognahay baa YouTube daawadayaal warbixin cusub leh oo soo dhacday sidaad muuqaalka hordhaca soo aragteen waa gabadhii Zamzam oo Malaysia ku nooleed oo wiilkeeda Maxamed Yare ka saqiirayay ayaa hadda dhibaato dhankeeda YouTube-ka ee ka shaqaysanaysa ka sheeganayso in xayeysiintii laga xaribay oo qofna uu ka xanibay qofku ka xanibayna aan sheegi karin wax u gurmanayana YouTuberada Malaysia kamid ah ama soo garab istaagay ilaa iyo hadda aanan haysanin Zamzam oo kaligeeda rafaaday oo oynaysa ayaa muuqaal barteeda YouTube-ka ay soo dhigtay ayaa muuqaalkaas hadda social media aad u gilgilay maadaama ay sheeganayso ayada kaligeeda in ay tahay qof garab saacideynayana ayna haysanin ama qof garab maanta soo garab istaagayo dhankeeda YouTube-ka oo wax kala qabanayo shaqadan hadda lacagta laga xanibay qaybta xayeysiinta YouTube-keeda markay fiirisay ayay aragtay in xayeysiinta qaybta lacagta laga xayiray xayiraadna laga saaray waagii horena sida ay Zamzam markay wiilkeeda uu ka dhintay YouTuberada Malaysia qof u soo dhaqaaqday ma jiro ama markay isbitaalka kula jirtay haddana sidoo kale qof hadda garab isiinayo ama garab taagan ma la arko sida ayada kaligeeda ay la rafaadayso YouTube-keeda oo qaybta xayeysiinta waxa kaliya ay Malaysia ku joogtay ay bariiska ka dhacsanaysay oo ahaa YouTube-keeda daawaday maanta YouTube-keeda qaybta xayeysiinta oo lacagta loogu dhagan yahay waxa cilad meesha ka soo wajahdayna aysan ogeyn ee cilada halkay ugu imaaday kaliya markay fiirisay in qaybta xayeysiinta oo lacagta YouTube-keeda loogu dhagan yahay ay muuqaal soo duuftay walaalaha Soomaaliyeed si ay u caawiyaan qof yaqaan ama qof u suubin kara haduu jiro inkastoo oo dad badan oo caan oo baraha bulshada caan la ah oo zaid u badan dalka Malaysia ay la joogaan laakiin ay garab siin waayeen gabadhaas masakiinta ah markii tacsida ay gashayna qof u yimaadayna uu jiran ama wiilkeeda ay la xanuunsaneed maantana sidoo kale garab ay dadka social media YouTuberada ay garab weydiisanaysaa si YouTube-keedaas cilada ugu haasata dhanka xayeysiinta loogu cilad bixiyo qof yaqaan haduu jiro Zamzam oo ciladaasi hadda cilad aad u weyn soo weerartay dhankaas YouTube-ka kaliya ay ka shaqaysanaysay bariisna ay ka dhacsanaysay qof dalkaas Malaysia ku nool oo iska tahay oo kira iyo ijaar iyo wax walba laga rabo sidaas darteed ay dadka Soomaaliyeed garab u weydiisanayso fadlan waxaan la wadaagi doonaa muuqaal ay cabasho ku weydiisanayso in ay ummadda Soomaaliyeed ay soo garab istaagoodan ay u baahan tahay nagu soo biir daawaday janaalkana noo qurxiyo asxaabteena kamid noqdo subscribe dhahanayo gambaleelka u furanay muuqaalkan like saaray soo dhawow daawaday waxaa dhacday in YouTube-kiga ciladoobay YouTube-kii laga saaray xayiraad qaybta xayeysiinta sugayay bisha 11aad sida wada ognahay baa